بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqdo wanaagsan muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga jawaabo su'aashan kor ku xusan ee ah maxaynu ka baranay xorriyadda laga soo bilaabo 1517 markii ay reer galbeedku soo galeen dalkeena. shaqadii ugu horeysay ee qabteen waxay ahayd inay shacabka Soomaaliyeed ka qaadaan xorriyaddii. wax walba dalka soo galaya iyo wax walba dalka ka baxayana inay iyagu gacanta ay ku hayaan. sidaa darteed taasi waxa ay keentay in shacabkeena muddo aad u dheer la gumaysto. gumaysigaasina uu gaaray heer Soomaalida badankooda ay gaajo darteed u dhinteen. waqtigaas kadib waxaa soo ifbaxay dad doonaya in shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan gumaysiga. shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee xornimadoonka ahaa waxaa ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo markii uu xaramka ka soo laabtay abaabulay ciidamadii daraawiishta si uu la dagaalamo gumaysiyaashii ugu waaweynaa ee Ingiriiska, Boortaqiiska iyo Faransiiska iyo Xabashida. waxaa ku sii xigay sidoo kale Axmed Gurey iyo dhammaan xornimadoonadii kale. laga soo bilaabo 1945 wixii ka dambeeyay waxaa bilaabantay xornimadii saxda ahayd ee Soomaaliya qaadan lahayd. waxaa la aasaasay ururo kala duwan oo waqooyi koonfur ka dhisan sida SNL iyo sidoo kale SYL. kadib markii aynu qaadanay markaa dagaal badan oo ay la galeen gumaysiga 1960 aynu xornimo si toos ah u qaadanay. haddaba su-aasha suuduuda mudan waxay tahay xorriyaddaas 1960 aan qaadanay maxaynu ka baranay. waxaan rabaa inaan qodobada soo koobo si idinka aad ila fahantaan. qodobka koowaad ee ah waxaan xornimada ka baranay waxay ahayd in Soomaalidu ay midoobeen. meel walba oo gobollada caalamka ku yaala ama gobollada dalka iyo caalamkaba in Soomaalidu ay midoobeen waa qodobkii koowaad ee laga bartay. qodobkii labaad ee xornimada aynu ka baranayna waxay ahaa inaynu yeelnay madax Soomaali ah oo dalkeena inoo hogaamisa. madaxweynayaal inoo taliya oo Soomaali ah oo wixii Soomaaliya ka soo galaya wixii ka baxayaba go'aanka iyagu iska leh. waxaan sidoo kale xornimada ka baranay inaynu qornay afkeena Soomaaliya 1972. waxaan sidoo kale ka faa'iidin waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya ay caalamka ay ku lahayd diblomaasiyad xoog leh oo xeer waxaynu gaarnay inaynu noqono guddoomiyaashii qaaradda Afrika oo shirkiis Muqdisho lagu qabanayo waxaa isku yimaanayay dhammaan madaxdii Afrika ka kala socday taasoo muujinaysa Soomaaliya heerka awoodda ay gaarsiisneed. qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabi kara wuxuu yahay xorriyaddii markaynu qaadanay kadib waxaynu ka baranay in ciidamo tayo leh aynu dhisanay taasoo keentay 1977 inaynu Itoobiya dagaal dhul soo celin aynu la galno ilaa ugu dambeyntii Itoobiya aynu Addis Ababa galnay oo sababna u noqotay markaa inaynu Itoobiya maamulno. laakiin reer galbeedka ay ugu horeeyeen Mareykanka iyo Ruushka oo gadaal ku soo biiray iyo sidoo kale Xabashida iyo Cuba iyo Liibiya inay ku soo biiraan dagaalka si Itoobiya u caawiyaan taasna ay keentay in ay awood batay. si doontaba ha ahaatee waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed hambaliyo xorriyad sanado badan kadib ka hor aynu qaadanay. waxaan rajaynayaa markaa in dalkeenu Allah subxaanahu wa ta'aala inuu ka baryaynaane in dalkeenu xorriyad iyo nabad iyo horumarna inuu gaaro.